kulanka ay gudoomiyaha golaha aqalka sare PFS iyo guddida hindisaha sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo xil saaray aqalka sare ayaa kulan wadajir ah waxay la yeesheen safiirada beesha caalamka oo fadhiya Soomaaliya. kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlayay doorashada 2020 ilaa 2020 la filayo inay ka qabsoonto qaabka ay u dhacayso ansixinta hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo haatan horyaala golaha aqalka sare in loo baahan yahay dib u heshiisiin si dadka Soomaaliyeed oo mid ah ay ugu dareeraan doorashada. dhinaca kale guddida hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo xil saaray golaha aqalka sare ayaa kulan la qaatay guddida doorashooyinka qaranka. goobta kulanka ka dhacay ayaa qodob loogu dul istaagay hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka. kulanku markuu soo gabagabowday ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadashay gudoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka Xalime Ismaaciil Xalime Yarey. waxay sheegtay in guddida ay sharaxeen qodobada hindi sharciyeedka 2020 loogu baahan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho. Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan gudoomiyaha guddida hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo xil saaray golaha aqalka sare ayaa sheegay in ay wadaan la tashi iyo xog ururin dhanka hindi sharciyeedka doorashooyinka sanadka kadib lagu wado inay dalka ay doorasho ka dhacaan. Xuseen Nuure warbaahinta madaxa bannaan ee VOS News magaalada Hargeysa.